waan ku salaamay saaxiib. waxaad imika la gunuusaysaa gubtaayo aad naftaada canaananayso sidiina tahay askari keligii ka soo hadhay urintiisii oo aad kala garan laadahay inaad faraxdo maadaama aad nooshahay iyo inaad murugooto ileen qofku inuu waayo gacalayaashiisu waa geeri kale way dhacdaa saaxiibin waayahaatuna ay nabadlaan xataa qofku isagu isla yaabo sida uu isu gediyey ka hor intaanay dadka kale la yaabin isagoo shanta dhabanka ku hayana uu isweydiiyo muxuu ahaa qofkan ani ee keeni noloshan adduun way qallafsan tahay saaxiib sida ay u kaleedayso qofka waxay gaarsiisaa heer u dareemo inuu ku fadhiyo irbad caaradeed maxay ku daraysaa weynida kownkani haddii adiga nafta isku kaa keento noloshu isagoo diyeysan amba weerarsan ayuu dhaqaaqayaa marka uu kaleedmo heer uu kala garan waayo dhanka uu u jeedo iyo dhanka uu ka jeedo caasha ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam weydiisay bal inay soo martay maalinka ka xumeyd maalinkii uu xudiyeen kale waxa uu uga warramay maalinkii ay ku shiideen Daa'if waxa uu ku yidhi waan dhaqaaqay anigoo aan garanaynin halka aan u socdo waxaan soo miraabay anigoo oo jooga geeska dawacyada oo ah tuuliyar magaceed waa nebigii Ilaahay qofka sidaas leeyahay ee ka waran qof kalena inagoo dhammaanteen isaga ka waabsan aba ka soqeynaa waxa jira arrimo aanay maangalnimada iyo garaad xuquuqdaar u samayn karaynin waxa jira murugaynaga koor weyn waxa jira dareena aanay buuruq qaadi karaynin iyagoo dhadhaab ka samaysan sidee ayaynu xamili karnaa inagoo laf iyo lud amba hilib ahay adiguna adiga imika wareersan mala jira geesta wacooyin aad ku miiraabto iyo saaxiib garabkaaga taagan oo hiil ku muujiya midina waa kugu kaliga sidii aadan xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee markii dhulka loo soo dejiyay iyadoo xaawina ay ka fog tahay alla kalinimo weyna muxuu qof kaligii ka dhex qabanayaa meeraha sidoo oo dhan u weyn isaga oo ka soo baxay jannadiisii gacalisadiisiina waayey oo sayid iskula gurxamaysaa oo hin qaraad oo aanad abad ooyina waad ilmaynaysaa adigoo aan garanayn sababtaad u ooyeyso ma inaad khajirsan tahayba mise waa inaad ku xanuunjisay nolosha ku galisay dagaalka lafajabiska ahi mise waa qof inaad niyadda ka jabiso ay kaala sahlanaan lahayd inaad adigu lafahaaga jabiso oo aad haddana qalbiga ka jabisay haddana waa adigaas ku aansaday inaad dib u dejin u samayso naftaada qalbigaaga dhibaatada qabana aad kabkabto ilaahayna aad niyad dhis dambi dhaaf iyo samirsiis weydiisato ilaahayu samirka noo adkee nabaadiina saaxiib